إنها تسكو قبستين أما نكوا كسي جستان maxay tahay qaladka kaliya ay sameeyso gabar walbo Soomaaliya markaad guursato adigaan kula hadlaaya gabar walbo Soomaaliya markaad guursatid maxay tahay qaladka kaliya ay sameeyso markaad aqal gashaan maanta waxaan ogaan doonaa qaladkaas gabar walbana wallahi billahi waana tan ugu badan markaad fiirisid wiilashana maanta way ogaan doonaan qofkii soo arkay muuqaalkan wuu soo arkay laakiin wiilasha way wada ogaan doonaan wallahi aan ku dhahay ani waa ku qanacay marka ugu horeyso aan arkay Idris Bebe saaxib boqolkiiba 200 waan kugu raacsanahay gabdhahana muuqaalkan daawada marka daawataan saaxiibyaal dhaqanka naga dhaafa waa dhaqanka kaliya la idin furo maalin walba ama gabar kale la idin la guursado adiga waa fiican tihiin gabdha baariyaala tihiin ninkiina raaliya u tihiin raashin fiicana karisiin wax walba sameeyeen wax aybo leedihiin male laakiin qaladkan gabar walba qalad uma maleyso laakiin waa qaladka ugu weyn oo ninka gabar kale uu ku raadiyo ama adiga uu kaaga tago muuqaalkan ay isla dhageysano Idris Bebe runtii saaxiib muuqaalkan ka hadal malaha insha Allah wiil walbana markuu dhageysto commentigiisa dhageysan doona wiil walba markuu muuqaalkan dhageysto ama uu daawado sideeda oo kale haduu ila qabo waan arki doonaa laakiin dhibaatadan ani waa la qabaa Idris Bebe uu sheegay oo gabdhaha Soomaalida ay wada qabaan gabdhahana nala daawada adikana muuqaalka waan daari doonaa ha hilmaamin laakiin inaad muuqaalka like noo saarto ha hilmaamin muuqaalka inaad like noo saarto si saaxiib badan u gaaro hadda bilmaami rabtaa like noo saar waa ku sugeynaa waa ogahay xaasidnimo ka ma laakiin hadaanan aniga ku soo xasuusin lahayn waa tilmaami lahayd sida aniga mar walba aan hilmaamo muuqaal aan ka helay markaan daawanayo waa hilmaama anoo like saar isla laakiin waa hilmaama hadda adiga waa ku xasuusinayaa like saar click leysi qosol xataa saar ana bilaabayo ani waa saar saaxiibadana la wadaag share gareey aad iyo aad u maasantahay muuqaalkan la dhageysta hablaha Soomaaliyeed meel waliba oo joogtaan waxaan u maleynayaa waxaad mar waliba isweydiisaan su'aal ah ragiina adigoo wax waliba u sameeya cunto macaan u kariya dhar wanaagsan u xirta gogol wanaagsan u diyaariya dabeecado wanaagsan kula dhaqma intaas oo dhan adigoo u sameeya sababta ku kalifta hadana dumar kale inay raadiyaan sababtan idin sheegaya waad wanaagsan tihiin gabdha dabeecad labaatiin waad qurux badan tihiin dad nasabaad ka soo jeedaan Soomaali weyn laakiin dibka idan haysto wuxuu yahay xagga gogosha ragiina marka aad la joogtaan dumarka Soomaaliyeed wad ka xishootaan dareenkiinana soo ma bandhigtaan innaha isku qabsatiin ama ninka waa ka sii jeesataan taa hadii aad sameeyso ninkaaga waxa shaki ka galayo raginimadiisa waxa shaki ka galaya hawsha sida la rabay inuu wado waxa shaki ka galaya inuu ku qanci karo in kale sida darteed ninka danta waxay ku kalifaysaa naag kale inuu raadiyo bal inay adiga wax ka qaldan yihiin iyo inay isaga wax ka qaldan yihiin sida darteed ninkaaga xilliga gogosha ka xishoonin dareenkaada ha qarin dariska ku maqlaan we don't care laakiin mar waliba ninkaaga dareesi inuu ku qanciyo Bebe wallahi billahi Bebe Idris Bebe wallahi billahi xaqiiqda dhabta ka hadash we don't care saaxib in dariska laga maqlo gabdhahan la hadleena war dariska laga maqla ma ahane magaalada aan wada istaagto ninkaaga markaas kalsooni weyn u dareema laakiin markii ciyaarta la gaaro baadii aad iska aamusto ama kaliga aad jiifato oo iska aamusto saaxib gabdhaha qaladkaas iska ilaaliyaan wallahi billahi waa qaladka ugu weyn oo qof walba uu sameeyo gabdhaha ninkaaga dareensi inuu nin yahay adigana aad ku qanacsan tahay oo runtii dadaal fiican uu sameeyay dhiirigeli qayladan ugu dadaal wah aad iyo aad u maasantiin waxaan rajaynayaa muuqaalkan maadaama uu fan iska yahay laakiin xaqiiqdana uu ka hadlaaya aad iyo aad u maasantiin insha Allah waxaan rajaynayaa in gabar walba muuqaalkan markay daawato ay qirato qaladkeeda ay qirato tii sameynaysa ma aysan anaga tii hadda ka hor sameynaysa ninkeeda inuu ka tago bataatan ba masuwaysidba sababta wax lagu eriyo male barkeen ninka asaa qaldan hadii gabar saas raaliyo oo wax walba sameeyso meeshaasna ku wanaagsan hadana gabar kale qof la raadiyay barkee kaas asaa wax ka qaldan
anaga kaas kama hadleyno nimanka ragga oo saxdaan ka hadleyna haddii gabdhaha sidaan ay u sameeyaan ninkan Idris Baba wuxuu dhahay we don't care qayladiina sax qayla iska dhaaf iska qayli diris ma ahane dirisyaalaha soo kaca hay marka de waqti wanaagsan idin leeyahay muuqaalkaana saaxiibada la sii wadaag aad iyo aad u mahadsantahay fikirkaagana commentiga nagula wadaag gabdhaha qaladkan iska ilaaliya tii hadda kadib la guursan doonana qaladkan iska ilaaliso aad iyo aad u mahadsantihiin wiilasha inta qaladkan nala aragtana Idris Baba ani waa la arkay waana la qabaa adinkana waa idin la wadaag wiilasha markaan ka sugaynaa adinka qaladkan ma wada aragteen ama ma wada qabtaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin waqti kale oo qurux badan